kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ardayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalka Mami hadduu yahay booqashada kugu horeysa fadlan kanaalka subscribe saar share na dhee asxaabtaada la sii wadaag mowduuca ka horeeyay haddii ku dhaafeen fiidiyoashii hore dib u soo daawo mowduuca maanta waxaa la nomenclature of alkanes qaabka loo magacaabi doono alkaneska ayaa la daraasaday doonaa insha Allah except for the first four members marka laga reebo afarta member ee ugu horeysa oo laga wada methane ethane propane iyo butane marka laga reebo leeyahay the number of carbons tirada carboniska in each alkane kasta ka tirsan is indicated waxaa loo muujin doonaa by Greek numbers tiro oo Greek ayaa la isticmaali doonaa as prefix ayaa loo yaqaanaa sidoo kale the single bond halka dabar is indicate iyadana waxaa loo muujin doonaa by the suffix an ayaa noo sheegi doonta in alkane ay tahay weliba carbon atomka dabarka isku hayeen uu yahay single okay 5 carbon waxaa dhihi doonaa benta ayna waxay noogu taagan tahay suffixka inuu alkane yahay sidoo kale 6 oo kale hexane noqon doonta 7 oo kale heptane noqon kartaa 8 octane ay noqonaysaa 9 ama 9 carbon waxa la doonaa nonene la dhihi doonaa 10 carbon waxa la doonaa decane ayaa la dhihi doonaa naming project alkane marka la magacaabayo waxa jira wax loo yaqaano alkyl group maxaa laga wadaa alkyl group and we discussed earlier hore waxaan ugu soo hadalnay the rules sharciga of naming saturated carbons qaabka carboniska oo saturated ka oo single bondiga ah qaabka loo magacaabayo haday ku dhaafin fiidiyoyaasha hor dib ugu laabo soona baro sharciyada loo baahan yahay inaad magacaabid alkaneska now marka let's see and firino what alkyl group maxay tahay marka alkyl group maxaa laga wadaa alkyl group wax kale ma ahane waxay ka yimaadeen markoodii hore and derived from the alkanes ka yimaadeen by removing a single hydrogen hal hydrogen macnaha afar hydrogen oo carbonki watay hal hydrogen ayaa laga saaray maadaama hydrogen laga saaray wuxuu loo yaqaano alkyl group ayuu noqonayaa hadduu alkyl group noqdo oo hal hydrogen laga saaray wuxuu qaadanayaa formula loo yaqaano CnH2n+1 marka hore muxuu ahaa CnH2n+2 ayuu ahaa maadaama hydrogen laga saaray wuxuu noqonayaa CnH2n+1 hagaag example-ka markaa fiirino kuwan waxay ku anfici doonaan marka aan bronchiska aad magacaabayso ku anfici doonaan tusaale ahaan carbonka asiga afar gacan wax ku qabsan afar hydrogen uu leeyahay haddii marka hal hydrogen laga saaro methane haddii la dhahay markii hore maanta remove one hydrogen hal hydrogen ayaa laga saaray wuxuu qaadanayaa name-ka ah methyl meeshii methane laga dhahay oo ane u dambeysay suffixkaas ayaa la bedeli doonaa waxaa lagu soo bedelayaa yl oo wuxuu noqonayaa methyl si lamida haddii ethane aad haysatay oo ah 2 carbon iyo 6 hydrogen hal hydrogen laga saaro waxa ku soo baxay wuxuu noqonayaa 2 carbon iyo 5 hydrogen see u dhawaaqaysa ethane ayuu ahay ane-da removing lagu sameynaya waxa booskeeda soo qabsanaya yl oo ah ethyl ayaa leedahay marka farac ayaa ku arki doonta marka caadiga bronchiska ayaa ku arkaysaa saddex carbon iyo 8 hydrogen oo propane loo yaqaano haddii hal hydrogen laga saaro waxaa u soo harayso 3 carbon iyo 7 hydrogen see loogu dhawaaq waxaa leeyahay propyl ayaa leedahay yl si lamid ah 4 carbon iyo 20 hydrogen oo butane ah haddii removing lagu sameeyo hydrogen waxaa u soo haray waxa loo yaqaan 4 carbon iyo 9 hydrogen waxaa leeyahay butyl hagaag common names of alkanes magacyada common name-ka waxaa kamid ah in la isticmaalo prefix la isticmaali doonaa sida n oo kale iso oo kale anio la isticmaali doonaa dhammaan xabxabada oo bar doona example waa ka qaadan doonaa enta maxay u taagan tahay enta macnaha normal laga wadaa oo ah all the carbon atoms dhammaan carbon atomiska form waxay sameynayaan continuous chain silsilad dheer ayay sameynayaan oo dheerarsan in normal alkanes caadi ah silsiladani wax farac ma la macnaa si toos ay u dheerarsan tahay marka tusaale example markaa fiirisid example-ka koowaad fiiri n bentene la macnaa waxaa laga wadaa silsiladan ay tahay mid continuous dheerarsan n butane sidoo kale waxa silsilad dheerarsan oo kale waay iso iniyo markaa fiiris ayagana maxay noqonayaan iso waa all the carbon atom dhammaan carbon atomiska
form waxay sameynayaan continuous chain silsilad continuous ah oo taxan oo dheeran except marka laga reebo the one midka daadkaasoo is next ku soo xiga to the last carbon atom carbonka u dambeeya mid ku soo xiga ayaa lagu dhagan yahay haddii marka carbonka u dambeeya kan ku soo xiga la haysto iso prefix-ka ah ayaa la isticmaalaa haddii iso la isticmaalo waxay ka dhigan tahay in carbonka u dambeeya kan ku soo xiga lagu dhagan yahay neona waxay ka dhigan tahay la yiri central carbon bartamaha yaala is attached ayaa lagu dhagan yahay to other four carbons aa ku dhagan silsiladaas carbon ayaa fiirsanaysaa carbonka centerka ah ee bartamaha marka xag soo tirisid oo inta ka timaado mid bartamaha ku noqdo isla midkaasna afartii gacan ee afar carbonka la haysato sida tusaalaha meesha noogu qorna u jeedid carbonka dhexe waxa haysato CH3 xag hore ah CH3 kor ah CH toosa kana waxa loo yaqaan marka neo ayubak waa system ama hab nidaamsan taasoo loogu talagalay in la isticmaalo sida loo magacaabayo waxa loo yaqaan organic hydrocarbonska marka waa system anfacaya oo muhiim ah oo la isku raacay oo sharci ah kaana saacidaya inaad si fudud u magacaabdid alkeniska ama organic hydrocarbonska ama isku dhisyada ku jiro hydrogen carbon marka system of namingka organic hydrocarbons loogu talagalay is based on the recommendation of the international ayubak marka waxaa laga soo gaabiyay international union of pure applied chemistry haddaadan hore u garanayn hadda iska baro ayubak waxaa laga soo gaabiyay international union of pure applied chemistry example-kan waa muhiim markaa fiirisid silsiladani kala baro horta waxaa meesha yaala magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin silsilada markaad fiirisid dhowr qayb ka kooban tahay CH3 toos ah oo isku wada xiran iyo qaar CH3 kor saaran CH3 meel hoose taala maxaa la kala dhahaa marka kuwani wayna kala taqaana marka silsilada dheer ee CH3 CH3 waxaa loo yaqaanaa parent chain waa midda aad ka xisaabsan doontid tirada carboniska tan markaa fiiris markaad waxaa leedahay waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waa 9 carbon 9 carbon marka maxaa la dhahaye nonane somaan nonane ayaa la dhahaa waa 9 carbon marka way ku anfacaysaa marka inaad parent chain-ka aan haysto ama silsilada ugu dheer aan haysto waa 9 carbon waa mid aad leedahay silsilada ugu dheer aan haysto waa meeqa carbon waa xisaabsanay marka fiirso marka inta carbon meesha taala silsilada ugu dheer ee carbon isku ugu badan haysata ayaa waxaa loo yaqaanaa parent chain ama silsilada hooyada macnaa ayada wax walba parent u ah waalidkii macnaa waa taqaan samaa way ka wada faracmayaan waxaa kuu soo haray kuwani kor saara marka kuwaasi silsilada way ka baxsan yihiin oo wayna ku dhagan yihiin waxaa loo yaqaanaa marka side chain waa waxa aad leedahay farac ma jira marka farac la sheegayo waa kaasa side chain kaas wey ama waxaa la dhihi karaa substituent waa la dhahaa substituent waa la marka ayagana waa side chain marka silsilada ayay geeskaga dhagan yihiin marka waa farac marka wuxuu ku noqon karaa methyl oo kalena wuu ku noqon karaa faraca ama farac wuxuu noqon karaa ethylna wuu noqon karaa ama faraca wuxuu noqon karaa halogenesna wuu ku noqon karaa macnaha bromo fluoro caloro kuwaas ayuu ku noqonaa macnaha halogenesna way soo qabsan karaan silsilada oo marka la magacaabayo waa ku arki kartaa iyadoo halogenes ay ku dhagan yihiin silsilada marka silsilada tani midda ugu dheer oo carboniska ugu dheer haysata ayaa waxaa la yiraahdaa parent chain wax alaala wixii silsiladaas ka farcama ee garbaha ka haystana waxaa loo yaqaanaa oo la yiraahdaa parent chain afwan waxaa la yiraahdaa side chain marka waxaa la yiraahdaa side chain ayaa la yiraahdaa side chain ama waxaa kaloo la yiraahdaa substituents farac marka waa farac waay farac waxay ka yihiin
parent gene farac ka yihiin hal marka dil u dhaho parent gene ka aawe waa inaad sheegi kartaa war side gene ka aawe waa inaad sheegi kartaa kadib ayaa marka waxaa kuu suurtagal ah inaad magacaabdid laakiin haddii aad kala garanaynin side gene-kayga aawe parent gene-ka aawe haddii aad kala garanaynin waxaa kugu adkaanaysa inaad magacaabdid sidoo kale waxaa kugu adkaanaysa haddii aadan garanaynin faracani muxuu yahay asiga methyl miya ethyl miya methyl maxaa lagu yaqaanaa waa hal carbon oo 3 hydrogen ay ku dhagan tahay methyl waay waa hal carbon oo 3 hydrogen ku dhagan tahay methyl waay laba carbon oo 6 hydrogen ay ku dhagan tahay ama laba carbon oo mid 2 hydrogen wato oo midna 3 wato waxaa la yiraahdaa ethyl la marka waxaa yaqaan ethyl waa ethane ayuu ahay hal hydrogen ka baxday ethyl noqday saas marka waa inaad u kala taqaanaa kida magacaabi kartaa halkan marka waxaa laga gali doonaa alkeniska ayaa laga gali doonaa qaabka loo magacaabo ay shuruudaha horta shuruudaha hore u soo aragnay hadda marka examples magacaabada gali doonaa insha Allah alkeniska ayaka general formula lagu yaqaanay leeyahay oo ah CnH2n + 2 sida waa carbon intana waxay u taagan tahay number of carbons H waa hydrogen labo waa tirada xisaabta ku sid macna n waa number of carbons ka + 2 marka waxay ka dhigan tahay haddii lagu dhaho 6 carbon ah heysata tirada hydrogenska soo hel waxana waa single bond qaacidada aad ku soo hel lahayd tirada hydrogenska waa ay qaacidadan oo waxaa leedahay number carbons ka haysto waa meeqa waa 5 5 law ku dhufo waa 10 + 2 igu daro 12 hydrogen marka waa 5 carbon iyo 12 hydrogen oo all carbons ay yihiin single bond taas markii qaacidada ku anfacaysa okay marka the essential characteristics astaanta ugu muhiimsan ee alkane lagu aqoonsan karo waxay tahay in molecule-kaasi uu leeyahay only clear single bond hal dabar ayaa present ku ah carbon atomka between waxa u dhaxay single bond waxaana loo yaqaanaa saturated marka haddii carbonka single bond ku arag ugu weyn alkane yahay naming alkaneska sida loo magacaabo alkaneska rules sharciya ayaa jiray fiidiyoashii kan ka horeeyaan ku soo sharaxnay fadlan dib ugu laabo markaas hadda magacaabayno cokobanta CH3 CH2 CH2 CH3 oo farac CH3 ah waxaa la tahay hal magacaabo su'aal isweydiina waxaa ka mid ah inaan horta soo helo parent gene-ka silsiladani waa imise carbon ma 6 ba ma 5 ba ma 4 ba waxay iga saacidaysaa inaan ogaado parent gene magaca uu qaadan lahaa kan waa mid ka marka tiri marka waa inaad tirisaa 1 2 3 4 5 waa 5 carbon waay 5 carbon maxaa la marka waa bent marka maxaa raacay marka su'aashaadu waxay tahay carbonka farac dabarka isku haya ma single ba ma double ba ma triple ba waa single hadduu single yahay marka wuxuu noqonayaa alkane waaye waxaa leedahay markaa in raacsi waxaa leedahay bentane su'aasha kale waxay tahay saddexaad farac ma jiro substituent ma jiro side gene ma jiro macnaa farac ma jiro ha faracaas yaa waay markaas weydiinaysa marka faracaas yaa waay faracaas waa methyl waay sidee ku ogaaday waa hal carbon maxaa la socdo 3 hydrogen methyl waa marka su'aasha kale weydiinaysa marka waxay tahay methylka farac maadaama uu yahay uu side gene yahay carbonka oo haysta carbon 5 mo haysta 6 mo haysta 7 mo haysta 8 mo haysta waa inaad sheegtaa carbonka haysto waa fiirnay marka tirada tirsataa fiirnaysa carbonka labaad uu haystaa marka maadaama carbonka labaad uu haysto waa magacaabaysa wax farac kale ma jiro maya waxaa la marka 2 methyl asoo marnaysa marka farac soo marnay 2 methyl bentane maxay u taagan tahay waa 5 carbon intana waxay u taagan tahay inuu yahay single bond tan kale marka first ayadana waa 1 2 3 4 oo dana laba farac ah 2,3 dimethyl butane halada marka simple waa ay fududahay oo waxaa laga wadaa CH3 waa numberanaysa marka sida caadiga u numberana 1 2 3 4 aa leedahay okay farac ma jiro ha farac ma badan yahay ha waa labo haddii faraca uu badan yahay waxaa isticmaalaysa hore u sheegnay di tri tetra isticmaalaya di waxaa waa laba carbon hadda markaa faraca waa isku mid waxaa marka 2,3
داي لaba methyl butane معناها داي methyl butane وهكذا. example ka marka fiirisid waa ina marka ku horta soo heshaa parent gene silsilada marka ku soo hel tirso longest gene ka silsilada u dar soo hel 1 2 3 4 5 carbon waay. good su'aasha la isweydiinayso waxay tahay wax farac ma jiro ha farac ayaa jiro. number 2 faracaasi ma isku mid ma haduu isku mid yahay meeqa waay fahmaysa marka hadda faracyada way kala duwan yihiin xagga F ah haysto fluoro waay inta CH3 ah haysto waa methyl inta Cl ah haysto waa chloro ana halogenes waa kuwaas marka sidee loo magacaabaa marka sidan ay dhacdo oo ay kala duwanaadaan waxa loo fiirinayaa kan maadaama fluoro F uu ku bilaawanayo kana methyl M uu ku bilaawanayo chlorine C uu ku bilaawanayo ABC hadii loo fiiriyo xarfahaasi yaa soo horeeyo midka soo horeeyo xarfaha ABC ku soo horeeyo ayaad qaadanaysaa waliba waxa sheegaysaa kaarboonku uu ku dhagan yahay ayaa sheegaysaa oo sidee loo sameeyaa aan sameeyay marka silsilada waxa u fiiri doontaa ABC aan u fiiri doontaa hadda marka F C M haysanna yaa noo soo maray C F M soo horeeyo sida caadiga C yaa soo horeeyo marka wax chloro carbon ka haysata carbon 4 waxa la marka 4 chloro yaa ku soo xigo F 2 fluoro yaa ku soo xigo 2 methyl macnaha M E F E C A B C markii la fiiriyo ku soo horeeyo alphabetical order C ayaa soo horeyso F E M yaa soo horeeyo F ayaa soo horeyso waxa la marka 4 waxay tahay carbon 4 ayuu haystaa chloro 2 waxay u taagan tahay carbon 2 ay haystaa fluoro 2 waxay u taagan tahay carbon 2 ay haystaa methyl. cycloalkanes alkaneski oo cycle ah hore soo qaadanay videoyaasha hore ka soo fiirso cycle-ka sida loo sameeyo hadana waa arki doonaa waa alkaneska those kuwa carbon atomiska carboniskooda are joined isku dhagan yihiin in ringi si silsilad amal isku dhagan nan aws waxa loo yaqaan cycloalkanes macnaha strategy taqaan samahan kan waa ringi silsilad oo kale isku xiran yihiin kaas waxa loo yaqaan cycle macnaha waa wareeg salaam marka fiirisid kaas kuwaad cyclopropane waay soo ku noqdo macnaha waa 3 gees walba carbon u taagan yahay carbon 1 2 3 gees walba carbon ay mutalay macnaha carbon waay cyclo waa wareegsan yahay propane waa alkane magaciisa kan kale marka fiirisid cyclobutane waay cycle macnaha waa cycle wax wareegsan maahan butane 4 carbon waay say ku ogaada inuu 4 carbon waxa ku ogaaday 4 gees waay 4 gees marka carbon 1 2 3 4 gees xisaabtanaysa soo marka waxa leedahay carbon kani waa carbon 4 carbon marka waa butane waxa la cyclobutane kan marka fiirisid waa cyclobentane say ogaada waa 5 gees waay waa gees koowaad 2 3 4 5 gees waay cyclobutane waay kan marka fiirisid wuxuu noqonayaa cyclohexane macnaha waa 6 gees 6 gees marka wuxuu taagan tahay mid walba carbon waay cyclohexane